Bismillahirrahmanirrahiim. Kulanti wanaagsan daawadayaal. Magacaygu waa Maxamuud Soomaali. Channelka aad daawanaysaana waa Gosol Production. Kusoo dhawaada qaybteeni dhiirigelinta. Barnaamijyadan dhiirigelinta horay ayaanu idinkaga ballan qaadnay inaan idin soo gudbinayno si waxyaabo badan oo aad ku haminaysaan ugu dhiirataan ayna idinka caawiyaan. Ha joojin dadaalka ilaa aad ka xaqiijiso hadafkaada. si wax walba aad ku haminayso aad u gaarto. Farxadda iyo dhoola cadaynta ayaa kugu hogaamin kara nolol aadan filayn, qalbi ku xiran rumaysanna xabiibkeena Maxamed sallallahu alayhi wasallam. Marna ma dareemo murugo. farxaddu waxa ay bilaabataa markii aad ku kalsoonaato noloshaada. bilow nolol farxadaysan si aad u gaarto guulahaada, isuguna kalsoonaato. hal wanaag oo aad samayso qof ayaa kugu abaalmarin kara malaayiin wanaag. haddii aad ku guulaysatay mid ka mid ah hadafyadaadii, abaalmari naftaada. ha joojin dadaalka, waad gaari doontaaye kana baro guuldarooyinkaada casharo. hadiyadaha kadiska ahi waxa ay isu soo dhaweeyaan lamaanaha wada nool. waxaa halkaa ka dhasha farxad aan la goyn karin, lana qiyaasi karin. ha ka dhaqaaqin hawl qabyo ku ah adiga oo aan dhammaystirin. ha oran beri baan qaban doonaa. la tartan nafsadaada, riyadu mar bay rumowdaaye. sabab u noqo macquul ahaanshaha dhicitaanka waxyaabo wanaagsan oo aad ku fikirayso si ay dadku kugu daydaan. haddii aad doonayso inaad noqoto ruux faraxsan, haddaa lacan wixii tegay, hana ka walwalin mustaqbalka ee ka faa'iidayso hadda wakhtigan la joogo. guushu waa helid wixii aad ku haminaysay, farxadduna waa doonis waxaad heshay. ogow ma jiro qof ku fikira inuu dib u laabto si uu u bilaabo nolol fiican, laakiin ogow maanta ayaad bilaabi kartaa nolol wanaagsan kuna dhammaata farxad iyo raynrayn. waxaad tahay ruuxa kaliya ee rumaysan kara hadafyada maskaxdaada ka guuxaya. ha sugin qof kale ee adiga ku dhaqaaq. mar walba ka fikira caafimaadkaaga, waayo berito ma iibsan kartid si kasta oo aad bilyaneer u tahay. isku day maalin walba inaad aqoon kororsato. xarafba allah ka dhige. u dhoola cadee mar walba, xitaa haddii qalbigaaga mid dhaawacan yahay. guushu waa mid u suurtagelaysa mid kasta oo inaga mid ah, saqiir kabiir, rag iyo dumar. aan dadaalno, aan wada guulaysane. noloshu way macaan badan tahay marka ay lamaanuhu isfahamaan, ayna fahansan yihiin xuquuqda midka kale ku leeyahay. go'aan qaado oo xakamee ficiladaada. ka fikir howl kasta inta aadan bilaabin. guushu way imaane. wax walba ee maanta kugu adkaada beritu way fududaanayaan, waayo guuldarada baad cashar ka baratay, waana ka baaraandeg. dadka maanta guulaha nololeed gaaray kama cabsadaan guuldarooyinka, halka dadka aan guusha dhadhaminna ay ka cabsanayaan isku dayo guul horseedi kara. jooji cabashooyinkaada iyo ku eedaynta aad ku eedaynaysid guuldaradaada dadka kale, ee bal xal u raadi oo bedel hababkii hore si aad guul u gaarto. waxaad maalin uun noqon doontaa ruux dunida wax ku soo kordhiya haddii aad maanta safar dheer isku diyaarisid. inta aadan bilaabin dhammaystirka howlahaada qabyada ah, bal hubi dayuurada shidaal ku filan ma ku jira. haddii kale dhexda ayuu kaaga go'ayaaye. macquul ma aha inaad gaarto ilaa aad ka badashid hababkii aad shalay ku guuldaraysatay. macquul ma aha inaad gaarto hadaf, taa beddelkeeda haddii aad waddo kale u marto waad guulaysan. la imow isbeddel. nolosha dhabta ah ay labada qofood ku midoobaan, kana fog been iyo siro, ayaa ah nolosha dhabta ah ee lamaane ku noolaadaan. la jir oo la joog qof qalbi fayow, kuguna hogaamin kara guulooyin aadan sawiran noloshaada. ha ku xukumin buug jaldigiisa, ee bal akhri buugga kadib go'aan qaado. sidaasi la mid ah qofka bini'aadamka ah, ha ku xukumin adigoo dusha ka bartay, balse gudagal si aad xaqiiqooyinkiisa u ogaato. in aad ku soo toosto run sheegid ayaa ka wanaagsan inaad been ku noolaatid. qorax kasta oo dhacda waxa ay fursad u tahay nasiino, halka qoys hal hadaf lehna aysan xuduud lahaan doonin farxadoodu. ma jiro qof ku guulaystay noloshan isaga oo aan riyoon, isaga oo aan sawiran guusha uu doonayo qaabkeeda. ma noqon doontid mid raaca hadalladiisa hadafka leh ilaa aad ka masaxdid maskaxdaada dhaawacyada ku yaal. maskaxdaada ka dhaadhici in aad berito ka wacnaan doontid maanta iyo shalayba haddii ay nolosha jirto. marka qof uu leeyahay qalbi wanaagsan, noloshu way qurux badan tahay. ee dhoola cadee. wax walba ka hormari allihii ku abuuray. xusuusnowna mar walba weydiiso cafis iyo dembidhaaf, kana bari guulo adduun iyo mid aakhiraba. mar walba qorshe lahow, isla soco, ha iska socone. miyaad ogsoon tahay in guuldaradu tahay jaranjaradii aad ku gaari lahayd guusha? qof walba lacagta qiimaheeda ayuu dareemaa marka uusan haysan, halka uusan ka faa'iidaysan marka uu haysto.